Ragow ma ogtihiin in miraha rumaanku yahay midka ugu faa'iidada badan xagga raganimada, kaasoo cilmi baaris iyo tijaabo ahaanba la xaqiijiyay inuu wax ka taro kacsi la'aanta, hammi-yarida, caajiska xagga gogosha iyo cillado kale oo raggu ka sheegtaan. Rumaanku waa miro aad u qiimo badan, ayna ku jiraan macdan iyo fitamiino jirka waxtar u leh sida maadada polyphenol oo sunta ka saarta jirka, maadada fiber oo caloosha jilcisa dheefshiidkana caawisa, fitamiin C iyo macdanta potassium. Rumaanku wuxuu u roon yahay caafimaadka wadnaha iyo kelyaha, laakiin wuxuu miraha kala dheer yahay inuu raganimada iyo cilladaha ku dhaca kaadi mareenka uu daawo u yahay. Cilmi baarisyo dhowr ah oo lagu sameeyay rumaanka waxaa la arkay inuu 6 siyaabood wax uga taro kacsi la'aanta, hammi-yarida iyo cilladaha ku dhaca qanjirka borostatada, kuwaas oo kala ah: 1. Inuu qulqulka dhiigga xubinta ragga uu kordhiyo, taasoo muhiim u ah kacsanaanta. 2. Inuu sare u qaado hormoonka ragga ee testosterone. 3. Inuu si dabiici ah u siyaadiyo maadada nitric oxide oo muhiim u ah joogteynta kacsanaanta xubinta. 4. Inuu jirka ku yareeyo maadooyin ay ka mid tahay superoxide oo hoos u dhigta awoodda raganimada. 5. Inuu sare u qaado tirada iyo tayada xawada ama unugyada shahwada. 6. Inuu ka hortago bararka qanjirka borostatada oo ah cillad rag badan ay ka sheegtaan. Qofkii mirahan tijaabiyay ayaa faa'iidadiisa garanayo, laakiin waxtarkiisa si degdeg ah ayaa loo dareemaa. Waa la cuni karaa, cabitaanna waa laga dhigan karaa. Hal koob maalintii wuu kugu filan yahay haddii aad ka cabanaysid cilladaha kore. Ugu dambeyn, dhakhaatiirtu waxay ka digaan in kaniiniga feegada ama Viagra lala qaato cabitaanka rumaanka, maadaama la arkay inuu keeno xaalad loo yaqaano priapism oo ah in xubintu jilci weyso oo iska kacsanaato, taasoo qofka gelin karta xaalad emergency. Waxay arrintaasina tusinaysaa awoodda rumaanku u leeyahay dhinacaas. Fadlan faafi oo la wadaag casharkan qofkii u baahan, waana mahadsantahay.